daawadayaal halkan waxaanu idinka soo gudbinaynaa munaasabad weyn oo magaalada Shafiil ka dhacday oo lagu dabaaldegayay Ciidul Fidriga oo ay isugu soo baxeen dhammaanba jaaliyada afka Soomaaliga ku hadla oo ku ciidaya bartamaha magaalada Shafiil gaar ahaan dukaan weyn supermarket weyn oo Tesco la yiraahdo kaarbaagiisa oo ummadii maanta muslimka ahayd ee reer Shafiil ay isugu yimaadeen waxaan halkan ka salaamayaa anigoo ah Yaasiin Faarax Jees dhammaan ummadda muslimka meel ay joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair waxaan sidoo kale salaamayaa dhammaan cidda muuqayga iyo magacayga garanaysa waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair ciidakum mubaarak maanta waa maalin aad iyo aad farxad weyn ugu hadlaan lahay reer Shafiil in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo suurtageliyay arrinta inta leeg annagoo Tesco extra facilitieskeena isticmaalayna oo dadka inta leeg inay isugu yimaadeen wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu magaciyay ayaan speechless hadalkii waxba oran kari maayo maadaama dadka inta leeg walaaladaya ay isu soo baxay ayagoo ciidaya ayaan very proud today aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan ku idhaahdaa dhammaan walaalada ka soo qayb qaatay arrintan reer Shafiil oo dhan aad baan ku mahadcelinayaa Ilaahay khayr badan haydi siiyo waxay ku tusaysaa inay wax badan wada qaban karayno dadku inuu mid noqon karay waa calaamad aad iyo aad u badan waxay gaariya islaamka maanta ay la yaabi doonaan meel isku yahay halkan media coverage ma loo yiri hadday noqoto Shafiil Star hadday noqoto BBC everybody is here marka insha Allah ta'ala is a great mubarak look at the crowds mashallah jazakumullah khairan it's a great day for all of us mashallah something to be proud of and bless up this guy not only in Shafiil but also in the UK mubarak waxay وعبد الرحمن عويل مدير شفيل وحمانت التاريخ dad aan malaynayo dadka qaarkood malaha markay daawadaan waxay moodayaan doofkii xajka waa Shafiil baan ku yeeynaa ma sha Allah dadka arkaysa waa reer Shafiil ciid mubaarak dhammaantiin awooda soo marnay muslimiinta oo dhan gaar ahaan dadka Soomaalida ciid wanaagsan inay ku ciidaan ciideeda Ilaahay dhammaanteen caafimaad ku gaarsiiyo Soomaalida aad wanaagsan xoog la isugu yimid nambarkooda arkaysa waa magaalada Shafiil UK ma amoodina Makka ma xashki ma meel kale ma Shafiil baan joogaa ma sha Allah halkan ka salaamaya dadweynaha reer Somaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan ka salaamayaa waalidiintay ehelkayga oo dhan dadkayga oo dhan meel walba ay joogaan waxaan leenahay ciid mubaarak waa maalin aad u weyn waa maalin aad farxad noo ah waxaan ku tukanay meel aad u weyn oo aanu hore ugu tukan jirin marka ma sha Allah waa aad baad u salaamantiin waxaan imika ku wareejinayaa Yaasiin liiban halkeed ka salaamaysaa adiguna bismillaahir rahmaanir rahiim wa kullu caam wa antum bikhair dhamaan xaqan waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda walaalaha reer Shafiil muslimiinta Soomaalida kulli say u dhan yihiin ma sha Allah maanta waxaan ku ciidnay dabcan saa arkaysaan big space oo Tesco Shafiil Bitsmore marka runtii waxaan leeyahay dhamaan waan salaamayaa muslimka islaamka oo dhan ay abdi halkeed ka salaamaysaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك وكل عام وانتم بخير halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kasta oo caalamka ay ka joogaan gaar ahaan dadka afka Soomaaliga ku hadla markaan ka soo gudbo dadka reer Somaliland markaan ka soo gudbo dadka reer Shafiil 25 sanadood muddo ah Shafiil deganaa ciidkan oo kale hore uga ma dhicin waa ma sha Allah wax aad iyo aad loogu farxo waxaan kale halkan ka salaamayaa anigoo magacaygu yahay Cabdi Salebaan Shide haya bari dadka magacayga iyo muuqayga dhammaan inta taqaana hooyaday Saare Cabdilaahi Muuse walaaladay ehelkayga dhammaan wixii muuqayga iyo maqalkayga ba garanaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kullu caam wa antum bikhair ma sha Allah imikana Cabdirashiid halkan yaad ka salaamaysaa maanta waa maalin farxadeed waxaan joognaa magaalada Shafiil yaad salaamaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa ciid mubaarak leeyahay dhammaan caalamka islaam waxaan leeyahay ciid wanaagsan ku ciida ciid bashbasho roqale ku ciida gaar ahaan waxaan si gaar ah u salaamayaa hooyaday Caasho Diiriye Xirsi iyo aabbahay Ibrahim Xirsi Ismaaciil oo labaduba ay ku nool yihiin magaalada Hargeysa waqtigan xaadirka ah dhammaan shacabka reer Somaliland waxaan u dirayaa hambalyo waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaantiin waad salaamantihiin khayr iyo barwaaqo ku ciida sanadkiisa Ilaahayna gaarsiiyo ciid iyo barwaaqo gaarsiiyo yar iyo weyn farxad iyo baraare ku ciida taqabbal Allah minna wa minkum waan wada salaamaya anigoo iloobayn wadankayga Djibouti iyo shacabka reer Djibouti salaan gaar ah iyaga u diraya waad salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iminkana waxa ku xiga Fuad Maxamed Xuseen Fuad halkeed ka salaamaysaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقرنتي وحسلام يا أمد الإسلام كأردن ملك استادون كشوغان مرلبات وحسلام يا أمد الصومالية ملك استوى كشوغان عالمك وحسلام يا ولا الذي فاملي جيجا دمان الإمام محمد حسين هو يدا من حاجة بكر وحندوني يا أوكلينا هذا إلهي صونتي يا صلاة دي أي نصونه هنا أقبله intii bisha Ramadaan ee khayrka qabta hooyatay ee ehliya qaraabo ahaydna Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo insha Allah Ramadaanteedana Ilaahay nabad iyo barwaaqo bishbishayna ku gaarsiiyo salaamu alaykum salaamaya hooyaday cibaado cabsiye diiriye Ibraahim indhaare iyo aabahay Abakar Xaaji Saciid diiriye calow iyo dhammaan ehelkayga oo dhan walaalahay ilmaadeeraday oo dhan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair kullu salaam tayyib. Assalamu alaikum. I would like to say Eid Mubarak to all my brothers and sisters, especially my mom and dad and my grandmother and father. برا halkan maanta ka salaamaysa farxadda ciida أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. أنا أقول برا قبل دقالة halkan waxaan ka salaamay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee Soomaaliya taqaana guud ahaan gaar ahaan ummadda Soomaaliland oo ay u horeeyaan madaxweynaha ummadda Soomaaliland iyo axsaabta maxayday madaxda axsaabta qaranka ee kulmiye wadani oo cid dhamaantood salaamaya iyo ummadda reer Soomaaliya dhamaantoodba waxaan kaloo si gaar ah u salaamaya dhammaan asxaabtayda gaarka ah ee Sheffield degan iyo asxaabtayda gaarka ee degan maxayday UK iyo asxaabtayda reer Sheffield ee maanta joogta Hargeysa dhamaantoodba aad baan u salaamaya waxaan kaloo aad u salaamaya asxaabtayda hore ee isku groupkan abki wax la wixii macallin sheegto oo dhanba meel kasta ba joogay. Assalaamu alaykum. magana Sultan Abdullaahi labiya bad halkan ka salaamaysa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. maanta waa maalin ciida waa ciidii Ramadaan waa maalin weyn waxaan salaamayaa dadka islaamka ah oo dhan ee daafaha dunida kala jooga gaar ahaan waxaan u salaamayaa Somaliland oo dhan madaxdooda mijahooda dumarkooda shicibkooda waxaan kaloo aan salaan u dirayaa dadka telefishinkan wanaagsan ka shaqaynaya staafka sida wacan u heeganka iyo dadkii xafladan ciid ee aanu isugu nimi soo qaban qaabiyay ka shaqeeyay culimadoodii codkarkoodii iyo dhalinyaradii ka shaqaysayba aad baan u salaamaya. Assalaamu alaykum ciid wanaagsan reer Sheffield UK ummadda islaamka oo dhan dhamaantiin kullu caam wa antum bikhair. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. halkan waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta joogaan qof kasta oo garanaya halkan waxaan ka salaamayaa gaar ahaan waalidiintay Maxamed Cariish Qalle iyo hooyada Run Cismaan Daale oo jooga Somaliland iyo walaalahay dhamaantood. Assalaamu alaykum warahmatullaahi. Assalaamu alaykum ciid mubaarak dalka iyo dabadaba dadka jooga oo dhan ummadda islaamka oo dhan baan salaamayaa gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda Somaliland dabadda iyo gudahaba meel kasta joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa aabahay Ciidiid Cabdi iyo walaashay Faysa oo jooga dalkii hooyo ayaan leeyahay ciid mubaarak iyo carruurtayada oo dhan iyo hooyadayoo joogta magaalada Sheffield all family and friends ciid mubaarak baan leeyahay. Ilaahay baa mahad iska leh mar labaad iyo mar saddexaadba waxa sidoo kale aan u mahad celinayaa TV-ga qaranka oo ay hawlwadeenada ka yihiin Abubakar Cariish iyo Yaasiin Faarax Jaas waan salaamayaa dhammaanba TV-ga qarankan salaamayaa sidoo kale waxaan doonayaa inaan hambaliyeeyo ciidan aynu soo soonnay 30 bari aynu soo soonnay Ilaahay inuu ajirkeeda iyo khayrkeeda siiyo ciidan waxa weeye waa ciid yoomal faraxa waa ciid waliba ay doonayso inay ku soo dhaweyso wanaag iyo farxad Ilaahay waxaanu soo soonnay camalkooda saalixayna siiyo sidoo kale waxaan doonayaa inaan salaamo oo ciidan kaga faa'iideysto familygayga oo ay ugu horeyso hooyaday Canab Cabdullaahi Cali oo joogta magaalada Birmingham walaalahay oo kala jooga Somaliland iyo Europe dhammaantood waan salaamayaa carruurtaan abtiga oo haybaan aad u salaamayaa kuwaan adeerka oo haybaan aad u salaamayaa dhammaantood waan wada salaamayaa inta ahli ah iyo inta qaraabada iyo inta aan family iyo inta asxaabnahay waan salaamayaa si gaar ah waxaan u salaamayaa dadka reer Sheffield dhammaantood waan salaamayaa hooyo Faadimo Faarax Jaas baan salaamayaa xaaskaygaan salaamayaa mar labaad waxaan salaamayaa Yaasiin Faarax Jaas iyo reerka xaaskiisa waxaan salaamayaa Yaas Abakar iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa waxaan salaamayaa dhammaan family-ga dhan baan salaamayaa waxaan doonayaa inaan iyagana salaamo
golayaasha qaranka ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamuud siiraanyo waxaan salaamayaa labada xisbi mucaarad faysal cali waraabaan salaamayaa waxaan salaamayaa cabdiraxmaan ciro waxaan si gaara u salaamayaa oo aan si kaliya laaba u salaamaya ciidamada qaranka dhammaantood waan salaamayaa xasiiskoodaan salaamayaa min janan ilaa alif laan salaamayaa dhammaan ummadda reer somalilan meel kastoo ay dunida dacladeeda ka joogaan waxaan leeyahay farxad ku ciida asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu